xuska sanad guuradii 8 ee maalintii la aasaasay ururkii dhaqdhaqaaqa wadaniga Soomaaliyeed ee SNM oo ahayd 6 bishii Abriil 1981 ayaa maanta lagu qabtay xarunta xisbiga mucaaradka ah ee Kulmiye. munaasabadan oo ay soo qaban qaabiyeen mas'uuliyiinta xisbiga Kulmiye ayaa waxa ka soo qayb galay hoggaanka sare ee xisbigaasi xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada qaar kamid ah aasaasayashii ururkii SNM iyo kumanaan qof oo kamid ah taageerayaasha xisbiga Kulmiye. kasokow xuska maalinta qiimaha leh ee 6 Abriil ayaa isu soo baxan taageerayaasha xisbiga Kulmiye iyo mas'uuliyiintiisu ahaa mid dhoolotus ah oo ay ku muujinayaan sida ay uga soo horjeedaan kordhinta golaha guurtidu ay 28 March u kordhiyeen madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa muddada 6 bilooda kaasi oo kaga ekaa 6 bisha Abriil oo maanta ah. munaasabadan oo ay mas'uuliyiin tiro badani ka hadleen ayaa waxa mas'uuliyiintii ka hadashay kamid ahaa Cabdiqaadir Xaaji Ismaaciil Jirde oo ahaa gudoomiye ku-xigeenkii hore ee golaha wakiilada imikana kamid ah xildhibaanada golaha wakiilada uga soo baxay xisbiga udub oo isagu munaasabadan ka jeediyay hadal qiimo badan oo isugu soo dhaweynaya asxaabta qaranka kaasi oo ugu baaqay in xisbiyada qaranku isugu yimaadaan wada hadal degdeg ah oo ay ku xaliyaan marxaladda maanta dalku galay. waxaanu ayaan darro ku tilmaamay in xukuumaddu ciidamo soo duldhigto xarunta xisbiga Kulmiye iyo taageerayaashiisa oo xaq u leh buu yiri inay isu soo baxaan aan la cabudin karin. gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha xisbiga Kulmiye Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo waxaanu taageerayaashiisa ugu baaqay inay isugu soo baxaan mudaharaad salmiya isagoo u sheegay in wixii maanta oo ah 6 bisha Abriil ka dambeeyay in xukuumadda Riyaale aanay ahayn mid sharciya. gudoomiye Silaanyo ayaa markii uu dambeeyay khudbadiisa ka dalbaday taageerayaashiisa inay socod ku tagi doonaan guriga uu degan yahay oo aan wax badan ka fogeyn xarunta xisbiga Kulmiye. waxaanu horkacay taageerayaashiisii balse ciidanka booliska ayaa hor istaagay markii ay soo gaareen wadada laamida ah oo aan in ka yar 300 oo mitir u jirta xarunta xisbigaasi. waxaanay ciidanka boolisku halkaasi ku joojiyeen mudaharaadayaasha xabad iyo rasaas ay ku rideen balse gudoomiye Silaanyo ayaan isagu joojinin socodkiisii. markii uu yimid guriga uu degan yahay ayaa gudoomiye Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo waxa uu saxaafadda ku siiyay halkaasi hadal kooban oo uu kaga hadlayo arrintii dhacday. guud ahaan badalka Somaliland ayaa maanta taageerayaasha xisbiga Kulmiye ay ka sameeyeen mudaharaadyo iyo isu soo bax ay kaga jawaabayaan muddo kordhinta xukuumadda loo sameeyay iyo xuska munaasabadda 6 bisha Abriil oo ay ku qabteen xarumahooda. waxaana isu soo baxyadani ka dhaceen magaalada madaxda gobolka Togdheer ee Burco iyo magaalada Berbera ee gobolka Saaxil.
waxaana halkaasi lagu xidhxidhay magaalada berbere ee gobolka saaxil qaar ka mid ah hoggaankii xisbiga ee gobolkaasi oo uu ka mid yahay guddoomiyihii xisbiga iyo 11 qof oo ka mid ah xisbiga kulmiye. xasan ismaaciil shaah, Hormuud TV Online, Hargeysa, Somaliland. waxaa wajinaa gudoomiye balse u dareemayso dareenka maanta munaasabada 6 abriil markii aad ka soo dirtay xafladii lagu xuseeyay munaasabadii SNM iyo asaaskeedii poliisku waxay naga hor yimaadeen rasaas oo ay ku ridayeen taageerayaashaada si u dareemayso arrinta iyo adigaba arrinta sidaad u aragteen weeye halka waxa aanu isugu soo baxnay xuskii maalintii la asaasay SNM shir baan isugu nimay xafiiskii hortiisa nabadgelyaa ummadda waxaan ugu baaqnay nabadgelyo annagu waxaan ku dhaqmaynay nabadgelyo shacbiga waxaan ugu tilmaamaynay waxa ay maslaxadda ummadda ku jirto waxaan u tilmaamaynay inuu maanta xukunkii gacanta ku qabtay cid aan nasteex u ahayn cid aan halgankoodii qirsanayn maanta halkankii SNM uu marinayo inuu nagu qasbo inuu xabsida horteeda ku qabanno oo maalinta khayraadda lagu qaban jiray uu ka joojay oo maalmo ku dheer iyo meel la tagayo meel madow la tagayo halka banaankaas aan ku qabanno xafiiska hortiisa ah annaga waliba ciidamada nabad ilaalinta u mahadnaqaynay waa darkaysiin oo wada maqlayseen annagoo aan wax dhibaato ku jirta halka ka geysan inaanu tilmaanno dulmiga dalka socda mooyaane waa arkayseen intaanu aan u lugayno ilaa gurigayga anagoo soo lugaynaya xabad iyo rasaas laga horreeyay arkayseen taasi maanta waxay muujinaysaa ayaan daro ciidamada loo adeegsanayo in dulmi lagu amrayo waxaasina waxaan u qaadanaa inuu yahay amar ka yimid madaxweynaha toos uga yimid waxaanu leenahay madaxweyne waxaad la hadhaa ma jirto cirka soo guji waan lugaynayaa waan baxayaa waan soconayaa imika halkaasaa soo lugeeyey ciidamadaada amar sii waxaad fulinaysa fuli waa dulmi waa boob waa dhac aniga iyo ummadda iyo shacbiga toona ka baqmayno lugaynana oo waan soconaynaa oo mudaharaad joogtaan u soo baxaynaa oo mar walba u soo baxaynaa xaq u leenahay oo dastuurna u leenahay annagu nabadda jabin mayno adigu siday kula tahay u dhaqanoo wad waxaad ka heshaadna leedahay